guri ku yaala magaalada Sanca ee dalkaasi Yemen ayaa lagu soo waramayaa in laga dhaxlay laba qof oo meeyda oo Soomaali ah waxaana ilaa ay imanka ciidanka baarista dalkaasi ay baarayaan dadkii ka dambeeyay dilkooda wariyahana Maxamed Jeylaani ayaa warbixintan ka soo diray Yemen waxaa maqribkii laga helay meed nin Soomaali ah iyo xaaskiis guri ku yaala xaafadda lagu magacaabo Saafiya Cadani ee magaalada Sanca meedkan labada ruux ayaa laga soo gaaray gudaha guriga oo ay ku bariyeen muddo 2 casho ah sidoo kale waxaa laga soo gaaray laba gabdho ku suuxsan guriga oo da'dooduna u dhaxaysa 15 ilaa 18 jir oo ay hooyada iyo aabaha geeriyooday kuwaas oo aysan lahayn miirkooda ninkan geeriyooday oo lagu magacaabo Yuusuf Diiriye Xasan oo loo yaqaan Yuusuf Googaal ayaa xubin ka ah guddiga qaxootiga Soomaaliya ee magaalada Sanca ilaa hadda lama oga sababta keentay dhimashadooda ninkan iyo xaaskiisa iyadoo ay weli socdaan baaritaanka ay wadaan hay'adda dambi baarista si loo ogaado sababta ka dambeeyay arrintan sidoo kale qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Sanca Mastar Cusmaan Axmed Maxamed ayaa markii uu maqlay arrintan naxdinta badan ayaa isla mar ahaantan oo soo gaaray guriga dhimashada ka dhacday asagoona ka warbixinaya sida ay u dhacday dhimashadan bismillaahir rahmaanir rahiim runaantu waxa dhacay arrin aad iyo aad looga naxo oo runtii wax laga xumaad ah reerkan waxay ka koobnaayeen afar ruux ka koobnaayeen sida aad arkaysaan laba gabdhood oo baa ka soo haray labadii aabihii oo la oran jiray muxuu ahaa Yuusuf Diiriye Xasan Yuusuf Googaar caan ku ahaa iyo xaaskiisii oo Axmed la yiraahdo ayaa meydkoodii waxaa laga helay 3 cisho kadib iyagoo oo muddo 3 cisho aan ka yaray meyd ahaa ayaa guriga laga dhaxlay waxaa la yaab lahaa runtii la yaab annagana nuu noqday haydihii meeshii baarahayna la yaab ku noqday dhammaan laba gabdhood oo waaweyn oo miduna ay jirto ilaa 18 tan kalena ayaa 16 sano oo uu ka tagay labanaas ay ka tageen waxa ayaa loogu tagay guriga iyagoo dhex joogo labadaas gabdhood ma aysan soo sheegin meydka waalidkood sababtan waa la garan lahayd iyaga laftigoodu aad bay runtii dhibaatooyin baa ka muuqdo oo lug baa wax ka gaal waxa ay aad uga barbarsan yihiin sababta ilaa hadda lama garan hayo dadkaas in si dariimaha ay ku dhacday oo la aad ugu maraynayna laakiin kulli hay'adaha un baa cadayn doono sida aad arkayseen waxaan markii dibkan loo soo sheegay aan si degdeg ah ku gaarnay goobtii waxaan dul tagay oo shakhsiyan u dul tagay muxuu ahaa meydkii labada ruux oo runtii aad maaragtay muddadaas yaalay marka iyo labadii gabdhood oo ay dhaleen oo aan soo arkay wax allaala wax laga sheegi karaa ilaa iminka ma jiraan ilaa maaragtay baaritaanku soo baxo waxaanu ka war dhawrnaa baaritaanka waana ku daba jirnaa runtii waxaan rajaynaynaa inay cidii ka dambeysay haday cidu ka dambeysay ay soo baxdo hadii aysan ay si caadi ah u dhinteen waa la ogaan doonaa laakiin arrintu sidaas ayay u dhacday kumar baanu tagnay waxba ma aan kala horeyn qolada maaragtay baaritaanka baarista iyo dhaqaatiirta maaragtay baaro dadka maaragtay meydka baaro waxaanu codsanay in lagu sameeyo maaragtay baaritaan sharci ah lagu sameeyo oo maaragtay dhaqaatiir dhanka sharciga qaabilsan dadka sida maaragtay loo baaro waxyaabaha dambiyada oo dhaca ama dadka meydadka ah baaro ayaa meesha soo gaaray waxaan rajaynaynaa in ay natiijo ka soo bixi doonto wixii natiijo oo ka soo baxana waa nala ogaan doontaan dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Maxamed Jeylaani Royal TV